kan shanaad oo madaxa ugu dambeeyahay waa icfaa'u lixyati weeyaan yani garka timaha lixyada ilaahay uu ragga siiyo sii dayntooda la sii daayo icfaa baa la yidhahdaa icfaagu laba macnoba mufasiriintu ku fasiraan lakin waa laba macno istegayso in la yidhahdo bimacna tarki sii daa sida shaaribka u xiiraysa u xiirina sii dayso in la yidhaahdo lanna yani qur-aanka way ku timaadaa xataa cafow wa qaaluu qad masa aabaa'ana adaraa wasaraa yani waa laga tegey faraha laga qaaday maarata taasoo kale bimacnaa tarki in la yidhaahdo ama in bimacna takhiir loo jeedo oo la yidhaahda icfaa'u lixyati garkii yani waxa weeyaan badintiisii la badiyo sow ku badanayaa sii dayntu ku bataa haddaa xiirto waa baaba'ayaa marka in garkii la sii daayo oo aanan la xiirin iyaduna min sunan almursaliin ay ka mid tahay maxaa yeeley nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka hadda aan sheegaynay oo bukhaari iyo muslimba maaragtay ay soo saareen xadiid ibni cumar wuxuu yidhi anhiku shawaariba wa acfu lixya shaaribka tirtira xiira laakiin garka sii daaya ha taabanina faraha ka qaada sunnadaasay ka mid tahay walidaalika ibnu xasmi wuxuu soo guuriyaa in la sii daayo garka in la sii daayo icfaa'u lixyati iyo in la baaqi yeelaahi inay tahay yani shay ijmaac inuu yahay buu soo guuriyaa ijmaac inuu yahay ayuu soo guuriyaa maxaa yeeley axaadiista icfaa'u lixyati ka hadasho iyo garkoo la sii daayo yani si waxaa lagu wariyey mutawaatira waa axaadiis mutawaatira la yidhaahdaa sunnada nebiga uu kaga hadlay arkhu lixa wakhaalifu lmajuusa icfu lixa wakhaalifu lyahuuda yani riwaayaadkaas aaday u tiro badan yihiin nabigeenna marka la tilmaamayo waxaa la dhihi jiray wuxuu ahaa kaana katha lixya mid garkiisu uu tiro badan yahay oo weyn yahay ayuu ahaa baa la yidhaahdaa marka waxaa la yidhaahdaa garka oo la xiiro dhowr yani maaragtay sifo oo wanaagsanayn ayay leedahay kow tashabuh binnisaa haweenkoo la isku ekaysiiyo maxaa yeele ayagaan ilaahay u abuurin midda labaad muthla baa la yidhaahdaa muhlada waxaa way qofka oo wejigiisa la bedelo la dooriyo yani ibnu xasmi oo kale muthla uu ku tilmaamaaba qofka wejigiisa la bedelo ayaa la yidhaahdaa midda saddexaad waxaa weye waa takhyiirun likhalqi اllahi tacaala ilaahay wixii abuuray ou abuuray oo ragga uu sameeyey oo dumarka uu ka bedelay ayaa maaragtay ayuu muthlo ku sameeyey walidaalika yani maaragtay hadda libaaxa maaragtay yani waxaa la yidhahda libaaxa bahalkan xayawaanka muftariska waa haybad buu leeyahay shaash baa la waxa u wato garkaas tirada badan oo wato iyo waa haybad wey marka wixii ilaahay uu siiyey ayuu qofkani la diriraya ay og tahay weeyaan marka waxaa ku sugan baa la yidhahdaa qurux baa ku sugan weyni baa ku sugan haybad baa ku sugan yani maaragtay waxyaalo badan oo qiimo leh ayaa garka sii dayntiisa ay ku sugan tahay marka garka oo la sii daystana min sunan almursaliin ayay ka mid tahay